waxyaabaha ugu waaweyn ee aynu maanta ku garan karno in adduunyadu qalbiyadeena degtay waxaa ka mid ah inaynu ka tagnay oo ilownay waajibaadka Ilaahayna saaray inagoo ka doorbidnay inaynu fulino waajibaad shakhsiyaad iyo bini'aadamna saareen waajibaadka Ilaahayna saaray ee aynu ka tagnay waa salaadii cibaadooyinka iyo caabudida Ilaahay inaguna waxaynu u janjeersanay shakhsiyaadka aanu u shaqayno ama hawlo qabanayno inaynu waajibaadkoodii horreysiino kii rabbina aanu ka tagno tusaale waxaad ka shaqaynaysaa meerad shaqadana qof ayaa ku dhiibtay wuxuuna waajib kaa saaran yahay inaad ilaaliso dayactirto xisaabta ilaaliso si fiican u shaqayso bal ka waran hadaad tidhaa shaqada markaan doono ayaan imanayaa markaan doonana waan iska seexanaya dee waa laga eraya shaqada xaqiiqada marka laga hadlana sida ugu wanaagsan ayad u gudataa una soo baxdaa waajibka qofka u shaqaynaysaa ku saaray balse maxaa ku diiday inaad gudato waajibka Alle adiga ku abuuray ku saaray oo aad shaqada cibaadada ku horreysiiso bal salaada aynu ka kala tagayno ee kolba xilligeenu doonayno tukanayno haddana Ilaahay uu kolba jaanisna siinayo bal qiyaas qof marka aad shaqadaada si fiican u gudan weydo koornaya ii dhaaf oga tag meeradeeda iyo Allah ku abuuray ee aad cibaadadiisa marna gudanayso marna ka tagayso ee haddana xilli walba kule adoonkaaga yortay mudaafi weydiiso ee toobadkeen subxaana qof walba waxa salaada dhaafiyay ee ugu jeeday ayuu caabudayay ka dhigantay sida aynu ugu dadaalayno in aynu shaqooyin fiican qabano si aynu lacag iyo adduun u tacabno aynu ugu dadaalno cibaadada Ilaahay sidoo ina faray inaynu gudano si aynu u helno janno